Maraykanka, Britain iyo Faransiiska oo duqeyn wadajir ah ku qaaday dalka Suuriya. Maraykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa duqeyn wadajir ah ku qaaday gudaha Suuriya, kaasoo ay kaga jawaabayeen sunta kiimikada ah ee la sheegay in dowladda Suuriya ay adeegsatay. Qaraxyo aad u waaweyn iyo duqeymaha ayaa laga maqlay caasimadda Dimashq iyo goobo ku dhow magaalada Ximis. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa war qoraal ah ka soo saaray arrintaas sheegaysa weerarka ay wadajir u fuliyeen Maraykanka iyo xulafadiisa. Waxa uu sheegay in Maraykanka iyo xulafadiisu ay u diyaar garoobeen tallaabooyinka ka dhanka ah dalka Suuriya si loo joojiyo adeegsiga hubka kiimikada. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in weerarada ay ka fuliyeen Suuriya ay ahaayeen kuwo qorsheysan oo loogu talagalay in aysan xiisadda gobolka sii hurin, isla markaasna la iska ilaaliyo wax walba oo waxyeeleyn kara dadka rayidka ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwo loogu talagalay in dowladda Suuriya aysan adeegsan hubka kiimikada. Ruushka ayaa horey ugu hanjabay in uu ka hortegayo gantaalada Maraykanka uu ku soo rido gudaha Suuriya, waxaana taas ay sii xoojinaysaa xiisadda iyo hanjabaadaha labada dal ee ka soo yeeray dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka Suuriya ay hubka kiimikada ku garaaceen magaalada Duuma, waxaana ka dhashay in carruur badan ay ku neef qabatoobeen, kuwo kalena ay ku dhinteen. Si aad u heshid warar xaqiiqo ah, dhacdooyin iyo aqoomo kala duwan, subscription noo saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.